بسم الله الرحمن الرحيم maanta meeshan waxaan u nimid arrin dadka deegaankan degan oo maarta shabeel carab degan arrimaha ay maalmahan dambe xoogaa isku riixayeen oo ahayd barkado meesha laga qoday dhul maaragtay la rabay daaqsinahaayo ay doogta daaqsinta barkada ay ka sameeyeen oo labada qoloba ay qodeen arrintaas xoogaa buuq ka dhashay baan u nimid labadii deegaanna waa isugu yeernay runtiina waxaa la isla qaatay arrintaas dhammaan in maaragtay xal laga aado ayadii baan hadda lagu dhex jiraa waxaan rajaynaynaa inay si fiican kusoo dhammaato haddii laba deegaankiina waa isugu yeernay labadii dhinacba waxaa la isla qaatay wixii qalada oo meesha ku jira wixii horey barkadihii horey u jiray oo horey u qodnaa ma ahane guddigaasi wuxuu ogaa wixii ka dambeeyey in la xaqiijiyo inta ay yihiin ayada xaqiiqintoodii baana lagu dhex jiraa waxaan rajaynayaa inay si fiican kusoo dhammaato waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa odayaasha labada dhinac ee aad u soo dhaweeyay arrinta oo xalkeeda aad u raadinaya oo nabadda ka shaqaynaya aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa mahadsantahay awowe maanta meeshaan waxaan isugu nimid labadan beelood oo aan 27 bisha aan maantay balantu ay ahayd inaan halkaan isugu nimaadno oo dhulkan baraagaha iyo waxyaalahaas ku muransanaa ayaan baalka ah isugu nimid ayadiina alxamdulilah hadda way noo fudantay xilligaan waa inoo soo gabagabowday go'aankooda iyo waxyaalihii qaldanaa xilligaan fulinayna dib u dhignay muddo wallaahi aan dhihi karno 2 sano meelahaas ayay socotay alxamdulilah 2 sano hadda intii ay socotay dhulkan baa la isku hayay wax dhib ah kamaysan dhicin ilaahay baa ku mahadsan annaga ka ciidan ahaan iyo ka amni ahaan waan ku dadaalaynay dadaalkii noocaas ah wadnay isaguna hadduu gabagabanooyo insha Allah inta dhammaan ku guulaysanayno